maanta waxa ka hadalnay xaas biri waxa ka hadli doona idinka go'aamin doona bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalaha qalbiga soo dhawaada youtube channel ka daawanaysan waa Munir official the king is back kudu falaxanka surprise mother the king is back guys soo dhawaada dhamaantiin saa isku ogtiin mar walba online mihi laakiin from now waxaan oo hayaa programkaas intuu ka dhamaanayne waxa rabaa ina online ahaano برنامج إذن هاي وحاول لدقن قبلشة قفل بحولية ولا الأبتي إيدا أدير هواي أبو حاس جعل وحول بوليه مركا مالين والبو قفبا سوق هذا دورنا إنك استوعانا إذن كم علين سنين وضد بدنا نرشي فانسنين إذن كجران هذانا أنا جميع قف خبيرة ونرش لنا أقانو له لكن وحاء هاي أرضي وحبارة وحأخرية وحي آخرية هدي أوح فإذا لك حركه إن إذن هركينا جالستي ما أنتو حي ميسكي إنو سارن سجال قضب أو مهمة سيادو حانتو xaaskaaga qalbigeeda waa sagaal qodob oo muhiim ah si aad u hanato xaaskaaga qalbigeeda qoys kasta waxa uu ka kooban yahay laba tiir oo ah kuwa uu ku taagan yahay kaas oo hadii mid liico dheeli ku imaan doono habsocodka nololeed ee qoyskaasi labada tiir waa ninka iyo gabadha ama aabaha iyo hooyada sida awgeed aabuhu waa tiirka koobaad ee aasaaska guriga waa hogaamiyaha qoyska ee laga rabo inuu si wanaagsan u maamulo cid kasta ee uu mas'uul ka yahay kuwaas oo ay ugu horeeyaan marwadiisa iyo ubadka uu dhalay isagoo ilaahay inoo cadeynayo waxa uu yiri raggu waa hogaanka dumarka aayada 34 ee suuratu nisaa haddaba waxa hadiyad uga dhigaya dhamaan ragga Soomaaliyeed sagaal qodob ama sagaal talo hadii uu sameeyo oo uu ku hantin karo qalbiga ooridiisa kow alla ka cabsida alle iyo ku xirnaashihiisu waa waxa koowaad ama furaha koowaad ee qofka gaarsiiyo baraaraha adduun iyo kan aakhirada sida darteed gurigaaga adduunyo oo aad ku bilowdaa cabsida alle saldhigiisa koowaadna ka dhigtaa waxay keenaysaa inaad si fudud uga samato baxdo adduunyadan dhibaatadeeda isagoo ilaahay taas inoo cadeynayana waxa uu yiri qofka gurigiisa ku bilaaba cabsida alle iyo raali ahaanshihiisa ayaa ka qayr badan kan ku bilaaba wax baabi'iya dumiya sababna u noqdo inuu naar ku hoobto aayada 109 ee suuratul baqara sidoo kale alla ka cabsigu waa sahayda kaliya aad haysato taasoo aad kaga bixi karto dhibaatooyinka adduun iyo ciriiriga aakhiro sida darteed waxaa habboon ninka ragga ah ama ninka inuu aragti dheer u lahaado naftiisa iyo dhammaan qoyska uu mas'uulka ka yahay kuna baraarujiyo alla ka cabsiga cibaadada iyo xuska ilaahay intaba number 2 dulqaadku waa udub dhaxaadka isku haya lamaanaha iyo dhammaan qoyska waa qodobka ugu muhiimsan ee aad kaga samata bixi karto jaranjarada loo maro qoyska wanaagsan waxaa hubaal ah inaadan marwadaada mar walba ka wada helaynin sida aad rabto inay hawsha kula wado sida darteed waxaa habboon inaad u dulqaadato oo aad u samarto qaladaadkeeda oo aad ku ilowdo waxyaabaha wanaagsan ee mar walba ay sameeyso oo ka badan qaladkeeda sidoo inoo cadeeyay rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee dumarka waxaa laga abuuray feer qaloocan taasoo hadii aad isdhaado toosi aad si kala jibin doonto ama gurigaaga aad burburin doonto furiin iyo waxyaabo la mid ah si kastaba ha ahaatee waxaa laga rabaa inaad dulqaadka badiso oo aad dulqaad muujiso si aad ugu miro dhaliso guusha mustaqbalkiina iyo gurigiina number 3 dhaqan wanaagsan waxaa laga rabaa inaad xaaskaaga kula dhaqanto dhaqan wanaagsan sidoo Allah subhanahu wa ta'ala na faray dhaqanka wanaagsanna waxaa kamid ah in xaaskaaga aad u fuliso xaqa ay kugu leedahay ee ugu horeeyo meherkeeda iyo biilkeeda inaad ka ilaaliso hadallada qalafsan ee abuuran caybka iyo inaadan xaaskaaga ka wajidadbin oo aadan cidna kale ka doorbidin waxaa muhiim ah marka aad rabto inaad guursato ama hadaad leedahay xaas in xaaskaaga aad u istaagto meesha waalidkeeda ay u istaagsanayeen oo kale sababtoo ah waalidkeeda dhibaato dib murug wax walba oo xumaan ah maysan u quuri jirin adigana waxaa laga rabaa wax walba sharaf ay wax walba wanaag iyo sida waalidkeed ay kula nooleed iyo in ka badan inay ka hesho oo muujin xariista aabo oo kale una xanaanay sida hooyadeed oo kale kalgacalka walaalkeed oo siin jireen iyo mid ka badan inaad siisid ee laga baahan yahay number 4 jacaylka waa dhismaha guriga waxa uu kamid yahay tiirarka ugu waaweyn ee uu ku taagan yahay guriga waxa uu kaalin mugle ka qaataa jiritaanka qoyskaasi sidoo kale waxa la dhihi karaa jacaylka waa xigmadda uu Alle u jireeyay guurka sidoo Alle quraankiisa inoogu cadeeyay waxa uu yiri tilmaamaha kalinimadeeda lagu garto waxa kamid ah inaan nafiina ka abuuray lamaane aad ku degtaan dhaxdiinana waxa aan dhigay jacayl dhameystiran iyo naxariis ma guurta ah aayada 21 ee suuratu Rum jacaylka ka dhaxeeya ninka iyo xaaskiisa waa mid mar walba u baahan kobcin iyo kor u qaadis joogto ah si aad kor ugu qaadan waxa u baahan tahay qodobadan kow inaadan ka xishoonin mar walba oo aad u sheegto ama aad dareensiiso inaad iyada adduunka ugu jeceshahay oo ay tahay qayb kamid ah noloshaada labo inaad hadallo kalgacal iyo naxariis ay ku dheehan tahay aad kula hadasho saddex inaad u muujiso ixtiraam dheeraad ah oo aad
hadalladeeda qadariso iyo waxqabadkeeda wanaagsan 4 isku day inaad marwadaada u dhagan nugulaato dareen la wadaagtana 5 qodobka ugu dambeeya wax ka ogow farxadeeda iyo murugteeda isla markaana isku day inaad la qaybsato farxad iyo murug labadaba intaas iyo in kale oo ka badan waa lagaaga baahan yahay laakiin intaas kaliya ku dadaal qodobka 5aad isqurxin waxaa shaki ku jirin ninka ragga ah mar walba inuu jecel yahay xaaskiisa inay mar walba qurux badnaato dhagar ahaan dhar ahaan isheeda wax walba inay qurux badnaadaan sidaa darteed waxaa iyadana mudan in lagu baraarugsanaado gabadhana sidoo kale waxay jeceshahay ninkeeda inuu qurux badnaado ficiis ugu horeeyo dadkana uu ugu sareeyo sidoo Allah inoogu sheegay quraanka subhanahu wa ta'ala dumarku waxay idinku leeyihiin wanaaga aad ka doonaysaan mid la mid ah aayadda 228 ee suuratul baqara sidaa darteed waxaa haboon inaad ku dadaashid nadaafada jirkaaga tan maryahaaga oo aad ku dadaashid sidoo kale cadayga sidoo rasuulka nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee uu sameyn jiray si aad u raali geliso ooridaada ama xaaskaaga number 6 hadiyad bixin hadiyadu waxay ka mid tahay waxyaabaha waaweyn ee qalbiga bini'aadamka saameyn weyn ku reeba waxa ay ka mid tahay waxyaabaha kordhiya jacaylka iyo kalgacalka sida rasuulku uu inoo cadeeyay wax isku hadiyeeya si aad isku jeclaataan sidaa darteed waxaa haboon inaad xaaskaaga wax aad u hadiyeyso waxay doonaan ba ha noqdaan hadiyad aad xaaskaaga siiso waxay keenaysaa firfircooni laab xarnaan iyo jacayl badan oo saa'idaad kala kulanta xaaskaaga sidoo kale waxaa muhiim ah xilliyada aad xaaskaaga hadiyada aad guddoonsiinaysid inaad ka barato xilliyada kale qodobka koowaad inaad xasuusiso marwadaada maalinka aad isxalaalshateen ee uu gurigiina dhismay xilliyada ay uurka leedahay oo ah waqtiga ugu badan ay dumarku u baahan yihiin in ilgaara lagu eego lana xanaaneeyo sidoo kale hadiyadu waxaa ku jirto sir weyn oo dadka inta ugu badan aysan fahansaneyn oo ah haddii xaaskaaga aad isdagaashaan ama xanaaq ama buuq u dhexdiina imaado waa waxa koowaad ee ugu horeeya ee farxadiina soo celin kara iyo inay heshiis noqotaan mas'uulka noqon kara number 7 tala wadaag in talada xaaskaaga aad la wadaagto sida inta ugu badan raggeena Soomaaliyeed ama inta ugu badan aan ku dhaqano talada xaaskeena lama wadaagaan macnaa lama tashtaan waxaa wanaagsan mar walba in xaaskaaga wax walba noloshaada ku soo kordha aad kala tashato inaad kala tashato caruurtaada mustaqbalkooda inaad kala tashato xitaa gurigiina iyo mustaqbalkiina dambe wax walba oo aad kala tashato xaaskaaga waxay kordhin doontaa inay mar walba kugu kalsoonaato ayna dareento in qoyskan ama gurigan ee position aad iyo aad u weyn ama boss aad iyo aad u weyn ay ka fadhiso sidaa darteed xaaskaaga talada la wadaag number 8 abaal celin sida ugu badan Soomaalideena ama inta ugu badan Soomaalideena waxaa ku yar in dadka ay u mahad celiyaan ama ay u abaal celiyaan way nagu adag tahay ama inta ugu badan Soomaalideena way ku yar tahay marka mar walba xaaskaaga wax wanaagsan ay ku sameyso inaad u mahad celisid inaad u abaal celisid maalintay garabkaaga istaagto ama adoo u baahan ay kula sabarto ay kula dadaasho biri inaadan ilaawin oo aad abaal celinteeda aad ka dhigto inaad nafteeda raali geliso waxay raali ka tahay oo sameyso sidoo rasuulka nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatay inoo sheegay qofka aanan dadka u mahad celinin allana muu mahad celinayo marka waxaa wanaagsan mar walba inaad xaaskaaga u abaal celiso abaalkeedana aadan ilaawin qodobka 9aad ee ah qodobka ugu dambeeya dadaal waa qodob muhiim ah oo qoyskaasna muhiim u ah waa kicinta ama awood soo celinta qofka bini'aadamka ah taasoo looga faa'iideysanayo horumarinta qoyska ama guriga mar walba aad dadaal muujinaysid mar walba aad taxadar badan ama dadaal aad iyo aad badan u muujinaysid si qoyskaagu u taagnaado waxay raali gelinaysaa xaaskaaga waxa ku farxaya xaaskaaga dadaalkaagu bata mar walba wuxuu ka caawinaa inaad ka warhayso amaba ay kugu faraxsanaadaan xaaskaaga gurigaaga ama qof walba mas'uul ah ka tahay iyo ubadka aad dhashay marka dadaalka isku mid ma ahan qof aan dadaalaynin iyo qof dadaalay labadaas isku mid ma ahan sidaa darteed haddii dadaalkaagu uu badan yahay xaaskaaga aad iyo aad ugu farxi doontaa iyo dhammaan qoyskaaga marka waxaa idinku boorin lahaa dhalinyarada inaa aad iyo aad u dadaashaan guys intaas ku eegyaa mawduuceena 9kaas qodob ani ma dhahay 9kaas waxa idinkaga fiicana waa aqaanaa ma ahay waxa ani akhriyay ama research ku sameeyay waa kaliya waxaa jira dad iga fikrado wanaagsan ama iga fikrado fiican oo wax badan soo gudbin kara marka 9kaas qodob haddii aad u aragto wax kale inay saaid ku yihiin ama loo baahan yahay comment waa ku soo bixin kartaa insha Allah mawduucan wuxuu noqon doonaa mawduuc tixano ahaan doona oo noo socon doona maanta waxaan kaga hadalnay xaaska iyo raali gelinteeda ama sidaad u haalan karto xaaskaaga qalbigeeda marka
biri waxaa jeclaan lahayd ama mawduuca aad jeclaan lahayd inaad ka hadalno waa soo sheegi kartaa walaalkaaga saaxiibkaaga waalidiintaada abti eedo adeer qof walbo oo ehelkaaga ka tirsan maalin walba hal qof soo qaadan doona maanta waxa ka hadalnay xaas biri waxa ka hadli doona idinka go'aamin doono waxaa ku mahadsantiin daawashada videoga daawateen dhammaantiinadeeda u mahadsantiin waxaa idinkaga tagaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mushaahidiina alkiraam peace.